Gabadha ninkeedii ayay iskhilaafeen. Bog iyo xabad ayuu ka soo garaacay waxa ayna go'aan ku gaartay in ay gurigiisa isaga tagto ciyaalkeedana ay wadato. Kadib gabadhii oo sii kufkufaysay ayaa ciyaalkeedii la soo carartay. Ninkii oo aad u xanaaqsan ayaa ka soo daba cararay. Waxa uu wata baangad waxa uuna bilaabay in uu geedaha jarjaro ciilu u qabo ayada darteeda. Kadib aad buu u qaylinayay waxa uuna u wacayay carruurta. Laakiin gabadhii ayaa ciyaalkeedii la sii cararaysa. Waxa ayna sameynaysaa in ay ninkaani ka baxsadaan si uusan u dilin maadaama uu xanaaqsanaa. Baangadna uu watay. Sidoo kale ninka waxa uu soo marayay waddadii ay soo mareen gabadhan iyo ciyaalkeeda. Waxaaba moodaa in la yiri halkaan ayay mareen. Kadibna ciyaalkii ayay la xarbinaysaa haddii ay keligeed ahaan lahayd mar hore ayay ka fakan lahayd laakiin ciyaalkii ayaa waxa ay ku noqdeen midba inay mar caawiso. Ninkii ayaa weli ka daba cararaya gabadhan waxa uuna wataa baangad. Markaa gabadhii waxa ay soo gaartay sidii ay u cararaysay biyahan. Waxa ayna damacday inay labada canug biyaha ka tallaabiso laakiin waa ay kari weysay. Kadib waxa ay bilowday in ay sameysay labada canug ka mid ah in ay markaasi kartoon ku daboosho ama ay halkaan uga tagto. Midka kalena ay sii kaxaysato si markaasi canugan ay kartoonka ugu riddo ay mar kale ugu soo noqoto. Kadib canugii kale ayay la carartay. Canugii kale ayay la carartay si biyaha ay uga gudbaan. Kadib canugii ayaa waxuu bilow inuu socon waayo waxayna bilaabaysaa inay canugii xambaarto. Sidoo kale waxay maqlaysaa qaylida ninkii oo markasta ku qaylinaya ciyaalka magacyadooda iyo sidoo kale ayadii u wacaya oo kule war idin aaway. Ayadu wayba ogeed in ninkan uu xanaaqsan yahay baangadna uu wato. Marka inay hadasho ma rabto Soomaha waxa ay rabtay inay ninkaani ka baxsadaan. Labadii canug ka mid ah ayay la soo carartay ayada oo rabta in markaasi in ay biyaha ka gudbaan. Halka canugii kalena ay kartoon ku soo qarisay. Ninkii oo xanaaqsan ayaa kartoonkii soo dul istaagay. Waxa uuna rabay in kartoonka uu la dhaco baangad. Laakiin naagtii ayuu wuxuu isdhahay ama uu maqla shanqar uu u maleynaya naagtii iyo canugii. Kadibna waa uu ka soo daba cararay oo biyaha ayuu soo dhex maray. Waxa uu ku sii qaylinayaa ama uu wacaya naagtii iyo ciyaalkii. Naagtii waa kan canugii way la soo carartay waxa ayna timid halkaan. Canugii ayay halkaan gelisay waxa ayna ku tiri meeshaan joog. Haddii aad maqashid aabbahaaga codkiisa ha hadlin oo halkaaga ku jiro ayay tiri. Canugii ayay la ballantay. Waxa ayna moodeysay in uusan ninka arkaynin. Kadib ninkii oo aad u xanaaqsan oo aadna u soo ordaya ayaa waxa uu arki doonaa naagtii oo markaasi ka soo baxday halkii ay canuga ku soo qarisay. Kadib canugii kartoonka ku jira ayaa ka soo baxay. Aad buu u yaaba meelahana uu fiirfiiriyay. Laakiin waxba ma uusan arkin waxa uu u wacay hooyadiisa laakiin waa uu waayay. Kadib hooyadii ayaa soo baxday. Canugiina waxa uu bilaabay in uu biyaha soo dhex maro. Asaga oo raadinaya hooyadiisii iyo canugii kale ee la dhashtay. Ninkii oo aad u xanaaqsan ayaa soo cararay kadibna waxa uu arka naagtii. Hadda ayay taagan tahay ayuu yiri meeshii aad rabto waa naagtaani. Aad markaasi gacanta ku dhigtay. Kadibna labadii canug ayaa is heleen kadibna waxay soo istaageen waddada dhinaceeda. Ninkan oo gaarigan watay ayay gacanta u taageen waxa ayna ka dalbadeen in ay markaasi uu caawiyo. Ninka waxa uu weydiiyay maxaa idinku dhacay halkaanse maxaa idin dhigay. Waxa ay u sheegeen in hooyadeed markaasi ay ka maqan tahay. Ninkii waxa uu ku yiri okay hooyadiin ayaan idin doonayaa ama idin raadinayaa ee gaariga iisi gudihiisa iigu sii jiro ayuu ku yiri. Ninkii waa uu soo baxay. Dhinaca kale naagtii ninkii waxa uu arka naagtiisii waxa uuna bilaabay in uu markaasi uu jir dilo. Waxa uuna lahaa halkee u cararaysa ma waxaa mooday inaad cagaha iiga fakan kartid. Ciyaalkii aawen ayuu ku yiri. Ayadiina aad bay u qaylinaysa waxay ku laheeday idaa. Sidoo kale waxay wacanaysa dad caawiyo. Halkaan dad ma joogaan miyaa ayay laheeday. Laakiin ninkii ayaa sida uu rabo waxay ahayd inuu naagta uu jir dilo. Ninkii caawinaya ciyaalka yaryar ayaa ku imaaday ninkan oo xaaskiisa dilaya. Kadibna waa uu ka qabto dhulka ayuu ku kala tuuray. Naagtii ayuu soo kaxeeyay waxa uuna u sheegay in ciyaalkeediina halkaan ay joogaan. Hooyadii ayaa ciyaalkeedii ku dul ooysay. Waxa ayna dareemaysay ciyaalkeedii oo markaasi ay kala maqnaayeen in ay dib isku arkeen.
ninkii ayay bilaabeysaa inay u mahad celiso maadaama uu ciyaalkeediina sii gaarsiiyey ayadan uu kasoo badbaadiyey ninkii baangada watay. Qaybteennii halkaasi ku eg tahay.